walaal England aad baan u dhowahay waana ku faraxsanahay inaan halkan soo fariisto aan maanta idin imaado waxaan hubaa inaan ahayn markii koowaad markii labaad midna aan imaado xafiiska Kalsan TV dewa TV waxaan oran karaa khatar aan laftiyo aan jeclahay inaan ku soo laalaabto haddana inta noogu meekaanaysay intaan in ka badan ku soo laaban doonaa saan rajaynayo maasal ayaa xilka soo yahay hooyadu waxaan sameeyay bishii Agoosto 26keedii magaalada Addis joog anoo safar iska aaday oo halkaas soo socday oo firdhaxaan khuruuj fi sabiilillah u baxay ayaan magaalada Addis oo joogan waxa dhacday wadogta inta badan population-ka umadu halka inta meelaha ugu badan ay isugu yimaadaan oo internetyada iyo markaad aragtid waxa shaado ama ay ka naxdo ama aragaa uu ka naxo qof wali baaba sida uu marka uga falcelin karo uga falceliya ayaa waxa dhacday waxaan arkay gabdho aad u qurux badan sawirkooda la igu soo taageeray mood xagga Facebook dabeetana waxa ku qoran nin baa waxa ku soo qoraya hadal ku faaxishaayo anoo hadda aan afkayga soo marsiin karin yani gabdho dhaqan xun iyo jirkooda ay ka ganacsadaan iyo wax noocaas dabeetana markii aan eegay sawirka aad baan uga naxay yani muuqaalka gabdhaha qofka bini'aadanka ay sawirka waxaad ku qaadan ka aragtida ugu horeyso aad aragtid yani wanaagga iyo xushmada iyo hooyanimada ka muuqatay ayaa aniga waxay qancisay aragtideedii dabeetana nin la yiraahdo Xasan Cabdullaahi Xaashi oo reer Jigjiga ayaan ku halqabsaday maansadayda marka xilkas weeye hooyadoontanu arar iyo kadib waxay u soo dhacaysaa gunta hooyadu waxa ay tahay iyo gabdhuhu waxa ay yihiin inaan la iska caayino la xaq sawirada lagu soo taageeray iyo hooyooyinka iyo hablaha laga sheegay waxyaabo aad iyo gabdhaha laftirkooda oo waxa iska jira in badan rag waxa la damacay dacarbina kama dhamaato nimanku wana iska jecel badan yihiin oo inta badan jacaylkii hablaha wada jiraan laakiin waxa laga yaabaa in badan oo wax ma garataayo haddana xumaanta iyo faafiya inay jirto marka talooyin way ku dhex jiraan gabdhaha laftirkooda la siinayo laakiin Google Digeedo sawirka ay ku soo baxday sidaas ay ahayd mansadana waxay leedahay Xasan oo adaa gabay xeeladiisa yaqaanay u sheeg xaashi dabadeed tala iyo xilkeedii ku dhaxaashi ruugyada ha xiqdiin ujeedada ha xaraashin garashada ha xayirin amaanaha ha xanimin dareenkana ha xawilin garaadka ha xaasidin walaalka qofka walaalka yahay moogtaad mahadsantahay bukaan mudan yahay ha xaasidin beelada xilka la isku dhaarshay ilaaha oo soo jiray adduunyada Allah u xilay xilka siya haliyay qaran inay samaha xeershaan xays iyo naqsan shaambu حقد شرفته ينقون حنبت ثلاثة ينقون حدو يلا جرشة حرب الصبح جلاك شوك حرب الصبح جلاك شوك حرب ما نكلو جو حيل أورادي دهب لومي حرف تدان سرتي إسبارة حل حلو واحد بدن فيري حكس تبك السورادي حيل ديرو ويدية سربيبتي حكمه هذا حركي مرين كيس حكت وحلي ما حكمت دادو ييلان حاشدي هالنقم بوركا حكمجي على إسكاجا haku doorsan xor liita nin kasto xil sharash sheegta nin kasto xil sare sheegta ka ah xor iyo boorka yani xor iyo baarka ka awday oo ka sareeyo qof walba oo xil sheegta yani suugaantaadii hadalkaaga inaanu uusan shilimaan ku qiimeysnaan nafta jecel xiriirkaaga kula nacab xantii ceebta xafidaysa samahaaga xiriir iyo usaal shaarka xaasid iyo ka dhowr duulka xurmo iyo hay weersan buy qofkii adiga laftirkaaga wanaag iyo xushmo ku hayaan xushmada kula dhaqan gabar yahay xadka ha dhaafin xuluskiya maqaarkaaga xididada dhalaalkaaga sharaftiya xakamaheeda xilkasnimada guushaada xajiintiya u diid ceebta oo waadira fahantaan malaynayaa sida goosha haysxoodin xira dhaafa caadaystan waxaa jira rag xuuraama ka xantaysta gabar dhowrsan hadhowtana xanteed faansha xunta iyo wuxuu geystay labada waxaad arkaysaa muuta iska caruurta xaafadda waxay leeyihiin aad xiribaha ha soo xiiran xiisaha isbaanbaanka hadba gola xaraawaysi xinqad sharafta ka riixda xiriir yahay ka dheeraada ragow xaalad kala guura cirku waxa iska dii waayay xoolaha abaarlaysay xagal daacu tira beelay waxa hanka lagu xiraa marwada boqorku xafiday gabdhaha xulashada u roon gabdhaha xiisaha u wacan gabdhaha xiriir lagu metelay gabdhaha xaribaha qurxoon gabdhaha xinka aan aqoon Soomaali Allah u xulay xasaradii ceebkada
maasha allah xabaalaha markaasuu leeyahay xabaal ma gayaan darmaanto xumaata haddaad u qaado xuntooda adoon banaysan waxaa hanka lagu xiraa xagtaad nuugtiyo midii xurmada kugu korisay adig haddaaba dabacda inaad gabar wax ka sheegtay intaadan gabadha wax ka sheegin waxaa la qaataa inaad hooyada marka hore u laabatid moogta dabeetana xaqa hooyada hadduu kuu soo dhawaado isla markaba waxaad ogaanaysaa xurmadii iyo gabadho ay kaa mudnayd moogta dabeetana waxaa laga yaabaa adoo isqarxin lahaaba inaad intaas yacni aad waxaa la yidhaahdo ku gaabsatid moogta haddana xafid oo u fiirso miweyntii iyo xaaska jooga xalaasha ilaah ku siiyey siday xigta kuugu baanto siday xurmo kuugu hayso siday xiriir kuugu daahdo siday xilka kuuga faydo siday xogta kuugu qariso siday xumo kuugu diido siday u xalayso maanka siday xakamaha u hayso siday ubadkii u xeerin buy wuxuu yidhi siday u xasilin kashaada siday xaqa kuu farayso siday xanxantada u beedho siday u xalayso laabta siday xirxir kaaga reebtay siday xagashada u diiday siday xumo kaaga reebtay siday xumo kaaga reebtay siday u xamdiday jacaylka siday u xanimi nacaybka dhaayaha xansadaha samaadu yiri labada indhood oo eega markaad heshid marwo adiga laftirkaaga nolosha iyo inta kula qaybsatay oo aad saas jacaylka iyo muraaqada aad dib u gashid ma ogtahay muxubada iyo galgacalku adiga laftirkaaga digrii bay dhaafaysaa ma ogta ogow xarun weeye hooyo ogow xamash weeye raysle ogow xilo weeye kaydsan ogow xarun weeye hooyo ogow xag kastoo la eego xumaan ma gayaan haweenku buy nimaysan xanaanin hooyo nimaysan xambaarin hooyo nimaysan xag siinin hooyo nimaysan xisaabin hooyo nimaysan xiskiisa hooyo xajmiyo ku abuurin weersan adduunyada xayma noola dee ilaa iyo barack obama dee nin walba hooyaa dhashay moogta markaasuu leeyahay adoy xabka kaa jilaabtay adoy xaqa kuugu baaqday adoy xumo kaaga heestay adoy guusha kuu xambaadhay adoy xil guud kaa sugaysay haddaad xandhi teeyo noqotay abaalkii xoodha hooyo abaalkii xoodhay hooyo haddaad dee xandhi iyo teeyaad iska noqotid iyo baashaad waday guushaad iyo dee waxay kugu heesaysaba hadday guriga daydkiisa dhaafi weydo iyo inaad tiraada heblo waa gabar aada iyo aada haa dareenka xambaaray dhiigga xumadda igu reebay maanka xisaabta ka shayda taalla intaan xal u raadinayay xumaha ka hor joogay taagan rag baa xirxirayay miino intaa xaqirayay tayda tixdayda xagaaf la raadshubi anugu intaan ha wanaag iyo guusha raadinaya koo waxaa jira moogta inay isbaareeyaan laga yaabo ama mareenka ka duwa iyo meeshaan u wada moogta waxaan maansada xadkeeda xogtii garashada ku gaabshay intaan raggu xeeladaysi haween la xisaabtamayo intaa xurmad iyo garaadka xifaaltan la dhaafsanayo anigu xulashada tixdayda xaqeeda ka baaqsan maayo halkaasay iyaduna aan kusoo koobeynaa maasada layaa sanad guura caashar waxaan malaynayaa waxaan sameeyey 2013 maanta jacaylo waxay ahayd dee jacaylkeedii kule arrimaheeday daarnayd moogta waxaana laga yaabaa halabuurka waxa uu sameynayana waxaa laga yaabaa inta badani inay dee kolley way kala culus tahay markaad aduu dee naftaada u heesaysid iyo marka aad naf kale ka heesid labay kala tahay waxaan ku sameeyey halka nihow ma garanayo bishii 8 marka la gaaro sanad walba maalintii rabtaa kaga aado maanta jacayl unbaa iga soo baxda oo marka bishii 8 la gaaro sababta ma aqaani laakiin waa ka cudurdaaranayaa sababta markaasay ahayd sida dirir sagaalaad seermaweydo jiro ku sitiqeeyay roobkii saxansaxada faraxa leh sanka loola raacaan saabka kuugu haystaa sahal wax ku beermo si yar igu fiday baa saro igu abuuro sawirkaaga mooyee hablo kale ka saahiday naftaas sabankan caashiqan saqashada xasuusta la sodon iyo ka badan baan sigashada habeenkii sariirta ka kacaya qorraxda salkeeda dhulka uu la siman yahay 3 midab guduudka uga saartay guusaha suurada iftiin kala sokeeyay jacayl suurada iftiin kala nafta lagu sababaan sokeeyay jacayl iyo xubbi ku sidaayo sahw baa ugu beerta sidaa markaasaan halkaa markay maansadu maraysay baan dabeetana gabar baan dalxiisinaya moogta dabeetana gabadhii waxaan kasoo dalxiisiyey dalxiiskii baan uga soo bilaabay sool iyo sanaag iyo halkaa iyo laacayn oo dabeetana mudugtaan hoosaan keenaya gabadha anoo wada marka maansada sanad guura caashiq halkaas wuxuu leeyahay
sool iyo sanaag iyo sinta ceeri gaabiyo baran oo sokeeyo sadka dhalay ku haystaan saabaroon ka shaaliya cayn sabad wanaag iyo saxdheer oo roobkii inta uu ku simay dayr ubaxsan guduudihiisa saaray gaadada saddex booda dhaantiyada sidqayaad la goysa kulli de mansadaas inkastoo aan inta ku soo koobayo waxay soo socotaba markii aan inta ku soo dhameeyay baan waxa la gaaray 2000 iyo hadda 2015 ayaa la gaaray moogtahay jacaylkii iska sanad guurada lahaa dabeetana ilaahay amarkii waaniga tagay caradii marka mansadani sanad guuro caashaqi aniga in badan waxa jira noloshayda feedback badan oo kaga soo laabtay inkastoo aanu aan dareenkan kaga hadlayo meeshiisa yaalay in badan oo bulshada kamid ah waxay soo weydiinayaan su'aalo waxay leeyihiin hada waxa la oran karaa mansada in yar oo aad adigu taqaanayo waaga diyaarad ku socon jireed mansada ku koobtay maxaa gobolada Soomaaliya oo dhan u diiday maanta waxaan isleeyahay kalsan baan kala saari doonaa anaga iyo ummadda intii kale aan maray mar haddaan socon doonto niyo xagga wax samaynta horta qofka banaanka bulshada horta waxa la yiraahdaa sida saxda Soomaalida ay tiraahdo waxa la yiraahdaa amba hidda amba hawl keenta qofka amba inay hawl ku timaado marka hal abuurnimada ka keenta ama inuu hidda iyo fan iyo meel uu ka keeno oo ku xiran uu jiro xaqiiqan aniga abahay uu gabiya ilaa haduu gabiya oo gabi jiray yaraantiisii laakiin anu markaan bilaabay abahay ku dayashadiisa ma ahayn anigana waxa laga yaabaa maalintii aan wax ka sameyn lahaa in la gaaro waxaan malaynayaa bahasho waxaan soo waday teedadayda marka laba loo qaybiyo hadda ku dhawaad malaha meel waa soo heesayay baan oran karaa qofkuna marka uu miyiga ku dhasho oo ku soo koro af Soomaaliga saxda ah ee miyiga laga hadlayay marka magaalada la timaadid waxa laga yaabaa inaad ka qalootid kii magaalada joogay la timaadid maansadii ugu horeysay oo aan tiriyay waxa loo jiray Soomaaliya qaribanay waxay Soomaaliya qaribanay qarannimada diiday u qulqulo tahriib ay qayla dhaanta badisay qeyra beena wadataa kulli baan ka sii xasuustaa laakiin waqti dhow ma ahayn waxaan u maleynayaa xilligaas iskuulka hoose dhiganaysa adu aan isleeyahay waka markaasaan sii wadayo la sii daba tagayo dabeetana waxaan ba arkay qolyo badan oo ii saacabinaya moogtaa wallaahi waxaad samayn kartaa ilaho ilaa haddaan sacabka ku sii socdaa moogtaa waxaan leeyahay balad ku sii qaxday caqabad ma laga baxaa caqabad baa adduunka lagama baxo waxaan aaminsanahay adduunka wax dhexaad ma jiraanba adduunka konkan aan saaranahay dhexaad kama jiro haddaad xaq u haystid inta xaq darada diriraysaa moogta oo xaqaaga ay dhibsanaysaa haddaad xaq darada u haystidna inta xaq jecel baa kula diriraysaa haddaad jacaylka u haystid inta jacaylka neceb oo jacaylkaba dhibsaday unbaa dagaalkiinu habeenkaa ogmaya haddaad nacaybka u haystidna inta jecel baa moogta boorka u taaganaysa adduunku marka caqabad lagama waayo anigu waxaan soron karaa caqabadba intaan leekahay caqabaduhu waxay ii ahaayeen jaranjarta aan ku socdo amba gogosha laakiin gabaygii kurbo yaan oran karaa yani raad buu kuu reebay baan is oran karaa berigii dee halkan aan joognayo aan berigii raafka gabaygii kurbo aan tirin jiray ayaa habeenada ka mid ah waa tii la xiray moogta dabeetana ana is xisaabiyay dambiga aan galay wuxuu yahay oo san xisaabtii u wadayba haysan alla caaw kurba ugu haysta aqoonta koowaad naftayda ku xisaabiyay buu ahaa waka marka caqabaduna ma yaraahmi walba kugu timaanaysaa waxa laga yaabaa inaad hees dareenkaaga aad ka samayso qeyr la aad samayso dabeetana kuwa siyaasad ka dhigan inkastoo aan jeclayn inaan maansooyinkayga kala soko marsado haddana xusuusta way wada leeyihiin oo tii dheeman baa ku jirtay tan kurbo kale ku jirta sanad guuro caashaq mid la yiraahdo iyadana la mid bay ahayd inkastoo xagga fuuq baxaygu u badan yahay xagga heesaha oo inta badan xaggaasan ku fuuq baxaa laakiin habeenkan israado wad ku baaraysantaa wax maansa ka yar naftayda uguma jawaab celiyo moogta gabayga kurbo wuxuu ahaa
waxyaalihii aniga kolleyda markaas hortayda yaalay oo dib bulshada amba aan la qaybsado amba qaas ay ahaatee laakiin marka la dhaho silsilada jacaylka yacni silsilada caadi oo taalada aan u taagay baa jirto oo taasanad guraca caashaq midaan hadda kala tirin doono oo la yiraahdo safarkaygu waa dhaqan baa daba socota ilaa hadda intaan ka loonaana mar walba marka bisha yani 8 la gaaro waxa laga yaabaa inay noqoto taala caadi oo iska socoto hadba mid iska soo baxdo moogta daba socota استاهل هسه قاعد jirtay هسه waxaan sameeyay 18 Agoosto 2015 waxaan joogay magaalada Jigjiga waa safarkii baydan la xiriirtay dadna magaalada Jigjiga markaan tagay baan halka ugu tagay fanaaniintii af Soomaaliya ku heestiday oo reer Jigjiga waxaan si qaas ah ula joogay muddo 19 cisho kooxda Lisbon ayaan aad ula joogay oo aan uga mahad celinay halkan kana salaamayo sida ay soo dhaweeyeen dabeetana waxay ka mid ahayd heesii aan ku sameeyay magaalada Jigjiga waxay dhahaysay naf baan jecelahay in badan nuur baan ka sugaa rajada naf baan jecelahay in badan nuur baan ka sugaa rajada nal baa iga baxay yarkan midku naawilay qalbiga walow noolaha dhamaan nafaqo uga yahay xubbiga hankiya niyadiyo indhuhu nurro u sii ahaan anaa naf la qaybsi biday inaan na jaxreer ku dago naxusta warkooda iyo muxuu nacab sheegaya nafdiga caashiqa harsada kaskaa nabarado damqayn hankaa kaligii ku naban dee hankaa kaligiisuba ku dhagan yahayba dee aad iyo aad marka wuxuu tilmaamayay gabardee ninkeedii ay jeclayd iyo isjeclaayeen heshay oo ay xolatay oo dadka kala dhex baxday inta kale oo meelaha yacni ka soo nuxnuxda iyo sheekooyinka yaryar ka soo dhahaysa baybay si toos ugu sheegaysa waxay leedahay anaa naf la qaybsi baday inaan jaxreer ku dagay naxusta warkooda iyo muxuu nacab sheegayaa su'aashu marka dee nacabkii u taala waxaan filayaa adiga nama qosayse nacabka iyagu waxay sheegi lahaayeen inay style u sheegaan bay ahayd mufta marka heestaas ay ahayd xaqiiqan waa hees macaan oo gabar cod macaanina way qaaday adiguna waad ku mahadsan tahay dad ku soo coloshatid waxa laga yaabaa laftirkaagu inaad ka jeclayd heshay macquul sama marka taasina waxay ahayd halkaas aan marinay marka dee magaalada Jigjiga magaalo yar oo iska barakaysan moogto Jigjiga waxaan tagay 2001 baan anigu tagay mar kaas anigu gobolkan Doolo iyo inta baan ku ekaa dhankan sokay laakiin 2001 baan tagay magaalada Jigjiga laakiin hadda safarkayga labaad aan tago hadda ii ahay magaalo yar oo iska barakaysan oo quruxsan waxaan ku sameeyay 32 heesood baan sameeyay 19 cashan joogo Jigjiga 32 heesood iyo hal maan ku sameeyay Jigjiga te magaalo yar oo iska khatar ah waxaan bal leeyahay marka joogiga deganaa waxay ahayd iska nuurka iyo raxmaduna moogta qofka moodka aad ku jirto uu soo degaa xataa laga yaabaa odagaagu habeenka aaminada aad wada joogtaan adiga laftirkaagu dee waxaad ka ogtahay raxmadda xataa sheekooyinkiina aad sheekaysan raxmadda iyo moodku inuu kala bedelan yahay waxaa laga yaabaa habeen sheekadu isugu kiin baxdo aad aragtaan idinkoo 3 aroornimo soo jeeda 3 aroornimo idinkoo soo jeeda inaad aragtaan baa dhici karta mood marka mood barakaysan baa yahay Jigjiga horta wixii ugu badnaayo aan ku arkay waxa ahayd aan ku qoslay magaalada Jigjiga oo dhan dadka jooga aabay siraadaan sida loo kala weeyay la soo dhaaf moogta sida loo kala weeyay la siraada Jigjiga oo dhan baa mid walba aaba ku dhaay 1100 dabeetana markaas madaxaaga taabanaysa moogta wallahi bidaar ma lihid oo dagaawanta dabeetana age-kayga iyo intaan jiray baan xisaabiyaa inaan yarahay markii dambe aan ogaaday inay tahay isxushmeyn iyo wanaag iyo maxbuubiga galgacad dadku soo qabaan inay tahay te maamada ha gabdho mar uu dhir maama horta adiya anu aaba meehi baan ku sigta muu anu aaba ma gaarin oo ka adiyeen aan dhaho laakiin wallahi waxa weeye meel yar oo shidano aabadu de raxmad ay ka mid tahay moogta aabbaha adu xushmo waxaan hayno ma qoortid dadana qofka aabba markuu ku yiraahdo isla markaba jawaabtu waxay ku siinaysaa de qofka inaan xumaan kaaga iimaanayn moogta inuu xushmad ku hayo de hadii beerkii aabbaha lagu geeyay marka si fiican baan u salaamayna
safarkaygu waa dhaqan iyaduna safaradii bay ku xigtaa moogta waxaan ku sameeyey magaalada Wajaale markaad magaalada tagtid aad sii socotay magaalada Wajaale aan ku sameeyay iyadana waa 8 August sameeyay iyadana waxay ahayd maadaama Kenya ka tagay halkii aan ka tagaan ka bilaabo marka waxaan ku yiri ma ogtahay dhigaygaay dhaameelka meeshaan bariya dhaxa ku noolaa oo aan dhugaal hore ku dhex kulanay waagi isla inaan ka dhoofo dhamas yar diyaarada ka dhex qaatay Kenya oo daruuraha dhexdooda iyo cirka sii dhex jiiro dhexda gaalka ayuu tagay dhalinyarada waayeen dhamaantood su'aalaha igu soo dhaweeyeen dhamaantood su'aalaha dhaqanka iyo afkeena fandisiga wareysteen buu fandisna doo kooxdeeni markaasuu leeyahay anna inaan dhigdhigashada ku dhex baahay socodkoo dhanka barihintaan tagay dhulka garacad ku hakaday dhinowdiya ma sii mareen dhulka xeebta ee mudug oo waxay yiraahdaan qoliyaha waxay yiraahdaan ma ogtahay reer koonfurka iyo markayna dacaydeen waxay yiraahdaan mudug kalluun male qudaar male bad male inay yiraahdaan marka waxa rabaa inaan u sheego badda ugu dheer Soomaaliya inaan leenahay 3 degmo gobolka mid ka mid ah ayaa waxay saaran tahay badda moogta marka halkaas uu leeyahay inaan xeebtii sii maray moogta dhulka garacad ku hakaday dhinowdiya ma sii mareen dhulka xeebta ee mudug waa dhaxal awoowe hobyo raad intaan dhigay dhowr bari gadaasho dhinacaas guldogob oo dirir dhacay intuu dheelay dhaanageeyo ku okaday barqa dheer dharaasama dhanka bari kamaan gelin oo ubax isdhaarsaday boorar magacyo lagu dhigay intay dhalasho keeneen soo dhawow imay oran buu dhafarlii socdaalkaas nin dhulkiisa jooga dhagar kama baqaayo dhudub iyo galaadiyo dhaqay boorafkeedii intaan dhaga fur soo maray maaneed bankeedii booqna soo ma soo dhugan dhibtu waxay ka taagneyd waxa jirtay haysan lahaay waxa jirtay la yiraahdo waxa la yiraahdaa dhaga fur dhudada jaclaaba guto dhaga fureed iyo dhil tara ku maqano dabeetana dhaga fur baan tagay magaalada la yiraahdo waxay ka tirsan tahay degmada Galaadi magaaladii baan tagay dabeetana magaaladii baa qadal igu soo dhaweeyo 20 qof ka badan baa qadadii ugu weydiisay gabadhii dhudadan jaclaaba guto dhaga fur iyo adii jirtay meedo ma heshay oo ma guursatay oo hadda meeshareysaan oo ma wada hadashaan oo xirmida ka dhaxeeyaan mayada u timido magaalada maxay dalada moogtay waan dhaga balaarta moogtay dabeetana wuxuu leeyahay dhibtu waxay ka taagneed dhalinyaro waayeel dhamaantood afkaaraha waxay ugu dhahayeen dhabeeshii ma kulanteen dhiiga ma siiseen aroos dhaga ma qabateen hanka ma isku dhidibteen dhayl ma iska dayseen dhayl ma iska dayseen dhaxan quro ma noqoteen dhayl ma iska dayseen dhayl ma iska dayseen dhaxan ma iska dayrteen dhaxan qura ma noqoteen dheef ma wada wadaagteen dhibtii iyo rafaadkii dhinacii laga jaray haatan maad ka dhaqan tahay heesahaaga dheef iyo dhaameel ma keeneen guushii ma dhaliseen isu soo dhawaad iyo rajo dhow ma haysa isku soo dhameeyo dhan kastaba intaan maray dhabeeshaan u jeelay adaa igu dhex noolaabu su'aalaha la weydiinayo dhan baa anu waan dhaafsan waxa laga yaabaa inaan meel kale jiro moogtaan mid kale waxa wiilnaa laftirkaygu markaasuu yiri dhan kastaba intaan maray dhamaystaan u jeelay adaa igu dhex noolaa dheelalowga socodkii aan ku maray dhabaha weyn ka dhaqaaqay mudug baa dhaayuhu jaleeceen dhul ramaas ka baxay oo dharab u baxay yeesho dhajaamaha xareed daarahu dhaa ka leeyahay burtulno dhan iyo hoos inta dhool ku jiifsaday mid kalena dhab ugu daayay barwaaqada dhamayska lagu dhaafo baahida dhayda geela ee badan marka dheregta lagu laday dhudhubobi lamado qof walba ka dhaansado garow dhitiya karis beesho ay ku dhaqan tahay amniga dhabcaal helin oo aan dhib iyo buuq dhinacyada ka jirin oo dhan walba la eega dhamaysiya nagaad yahay soo hameen kuma dhixin safarkayga dheer baa dhulka igu socdaalsho waxaan galab dhaqaaqi dhalondhoolka guusha u dhaqaaqay soolwacan waa gobol dhamaysoo dhaayaha mar booqdaa ka dhirgeyn hameen oo dhinaca jaleecdaba dhanka kale ka wacan yahay dhaxan iyo dabayl male dhiiliyo colaad male dhugatiya kulayl male cadow soo dhaqaaqo dadka dhibayo kuma arag cadow soo dhaqaaqo dadka dhibayo kuma arag dhisme laga gayoodo laga dhaaway ma arag dhaya laga socdaaliyo dhagad boor kuma arag buu magaalada Sool magaalada waxay tahay anadu qosle moogta magaalada markaan la saxana saab dhexmariyay waxaan arkay xabsiga dhinaciisa soke waxa ku yaala laba meelaha yar timaha lagu jirto maartay sida oo sandaaqadaha laga sameeyo mabaatiga ayaa laba isku dhagan ku taal waxa ku qoran Isliim Mool iyo Madiina Mool salaam mood Isliim Mool waa moolash weynay halkan tuinta warka caadi ayaa loogu magac daray markaas saa u eego waxaan isiri ama sawirata asraama lagu ciraada sawirada moogta nin jacayl ku dhigan yahay dheelalowga geediga marna kama dhamaadee soo hiirta dhaafka amaan dhaqaaqan socodkii dhulku waa cagaar siman dhuuc iyo mareerka isla dhaafay geesaha laamiga dhexdiisana dhal sagaara mooye dhibis gaartay kuma arag dhinacyada agteedana dhiila taagan kama maqal buu yiri waxaan sii dhaglaynama dharaar siman ayaan maray tahay soo dhaanka kuma furin magaalada la dheegtay dhuux iyo naf loo huray ee magaca dheer loo buro cagaha maan dhigan buu xarun weeye dhaxalgala biriishada isdhaafee laga dhaaway gudihii iyo dhirta ay ku beereen dheehashada la daawado farxad aan dhammaan baan ku dhex qaatay gobolkaas buu
ka dhaqaaqa socodkii horey baan u dhaafo waxaan lagu hasiyo dhigay dhismihii guryaha Sheekh cimiladu dhakaar mala dhagaxeedu waa dahab ummadaha dhex joogana ninka dhowr basaas qabay uu ka dhaashan karaya suuq baa dadka ka daa dhanka hoose ee bilanbuur baa ku dhinac taal dhabihii wadiiqada bari laga dhex jeexo gaarigii ku dhaafaa sahal kuma dhamaayee marna dhinaca bidix jiro marna mari dhanka midig waad aragtay magaalada buurta Sheekh marka la marayo waa meermeer marka wuxuu yiri qof kasto gaariga saa u saarnaaba moogtahay faataxa wada qabsatay dabeetana faataxadeedan ku tarsado moog gaarigu dhaca laga baqo wuxuu qof kasto dhanka mara suuradaha la dheegtiyo dhowr faataxa ayuu maran quruxdana dhankiisa dhaayaha la reexaa wuxuu maan ku dhahayaa allow yaa dhex joogo ka dhaqaaqin waligiis ka dhaqaaqa buurta dhanka hoose ee bilan marka dhagaxa laga baxo magaalada ku dhaaman heesaha ay ku dhiganto waa dhumucda laaleys ee hiba dambaalkii dhawaaqiisa uu fiday caashaquna ku dheexnaa ka dhex qaaday barigi laaleys dusheedii laangabi ku taalay Soomaaliya heestayba nuuro naf jacayl dhufaamo oo dhutunaysa socodka wuxuu naf jacayl dhufaamo oo dhutunaysa socodka ilaa igu dhex noolo waxay dheef ka sugaysaa gabar bari ka dhoofto lagu dhigay xiskayga wuxuu maan ku dhahayaa allow yaa dhabeel qurux la dhex jooga shiiqo hadba dhinac u raaco dhibta nolosha lagu laray dhan kastaba ka leexiya caashiqu ha dhowrmo dhibna dhibna haydin deysee namarada dhankayga waxma yaana dhuganina dhageysto balila soco sahankayga dhaanka hadba dhinac jalleecada dhool waxaan isleeyahay dhultigaada la ogow dhirtu midabka kala wacan waxay dhirta midabka kala wacan dhulna deeqda kala badan dadna dhuuxa kala roon dhirtu midabka kala wacan dharkaylka iyo galoolkuba dhirta waa u laba geed dhulku deeqda kala badan dhagax iyo rug beerala dhan kastay ku sugan tahay dadku dhuuxa kala wacan dhabcaal iyo haliyey qaran dhan kastuu ku sugan yahay deha geesi iyo mid iska baqayla labada waa laga helaa muugta 10kii ku timaada dhagashada araartan waxaan heesta ugu dhigay dhul usibir ka buuxo hadii dheefta laga qodo dadku ay dhargi lahaa badna dhinaca kaga taal dhaxantare birbiro oo wax dhantaala lagu arag soo hameeyna kuma dhixin maalmana ma soo dhugan buuyo safarkaygu waa dhaqan marna waa dhul barasho wuxuu dheega ku hayaa dheelitira Hargeysa mar dhulkaaga soo baro barqa dheer ayaan imid dhismaha yabwaanadu dhaxal gabay ku sheegeen dhan kastaba jalleecada dhaayahan danuunaca dhugashada la raaco dhimir bakay dawo u tahay dhaqan bay dalka u tahay dhisid bay fanka u tahay ninku dhaxay hameen qura dhaya lagama bixi karo waa xarun dhamayso dhaqanka ku gaamuray wax idibana kuma arag alla way dhex qaaday dhagashada u sii badiyo halkaan waa magaalada Hargeysa soo dhaxanta dayreed halkaan qosol ka dhacay magaalada la yiraahdo Gabiley ayaan anadu iska ninkaas jacaylka ku raran baan moogtay markan magaalada Gabiley saa u sii galeynayba yar gaarina soo jaamac la yiraahdo ayaa wuxuu ugu yiri magaalada Gabiley halka laga galo qofka arkay geedo ayaa labada geesod ku beeran ayaa wuxuu yiri geedaha lamaana la yiraahdo ninkii naagtiisa shukaansada intaana isguursan bay beeraan anuna jacayl baan saabka ku wataa moogtaa dabeetana caashiqada watay baan isaga sii darsaday moogtaa ila mur shaqeynaya u tahay marka wuxuu yiri soo dhaxanta dayreed darabkii iyo qabowga subax dheelku uu daay dhanka Gabiley uma bixin dhinacan ka soo galay dhir beere kuma arag ashqaraarka dhugashada anoo maanka dhay raba soo inaan dhankayga ima dhihin dhirtaan idil dhalinta talaasho wuxuu dhaabka ku hayaa dhaqan bari tisqaado haday laba isdheegtaan waxyada dhalaalka dhagdhag la isugu heshado inta aan aroos dhicin intay dhaqanka ofshaan dhirtaan bay abuuraan dhuumbiya ku furayaan dhaayaha ku fiirshaan ama dhool ku sahanshaan aniguna dhugdhugashada waa dhabar jabkayga soo dhaawacaan qabay dheelalowga ima badan jacaylkayga dhigan baa dhan markaan ka awdaba dhinac kale ka yaaco waxaan soo dhaweeyaa xubbi dhimarka raaco dhakhtar caashiqan helin buy nin jacayl ku dhigan yahay dhalandhool ma daayee dhowr nabar anoo qaba dhuux iyo jirkayguna dhamac uu ka kalol yahay naftaa dhiilatahay anigoo dhakaar qaba ku dhex sirtay kala bayr buy magaalada kala bayrliya markaan maraynay xagga soraan gaariga saarnaa moogta halkaan markaan marayay baan yara saa kursiga ugu seexda moogta jacaylkii iyo geedihii ninkii tustay iyo asqaraar dhugashadii wixii waan siriray de hurdo lama oran karo waa iska sirir moogta marka wuxuu yiri dhayal maaha socodkaya waxaan dhaxa baraarugay beeraha la dheegtay ganacsigu ka dhoofo dhuumaha wajaalo markaa dhaanka lagu furay soo gaari ima dhigan safarkuna ma dheeliban taariikhda dhigan baan dhambaalkii iyo tixdeedan sumad uga dhigayaa in jacaylku dhamac yahay dadku ay ka dheegtaan ama raadkii aan dhigay maansadii sanad guuro barigii markii la igu yiri dee ilaa iyo soo sanaag dadka soo biroodo xaggaad u socoto dabeetana bishisteed ilaahay amarkii bay u dhacday inaan xagga u socdo moogta dabeetana halkan ku xusay dee sanad guuro haddaan xagga aaday dee waa iska silsilad caashiqo tii labaad baan xaggana u socdaaye yaan wax naxliya la isu qaban dee soomaa ama raadkii aan dhigay maansadii dhabta ahayd sanad guuro dhulkaan dharkayn uga bilaabay ku dhameeyey mudug bila tanna inaan dhaqaaqii dhan wajaala tiigsaday oo dhulkeenna dooga hadba dhinac jalleecada dhayal maaha dooqiyo ku dhex baahay socoshada buuyo
ina yahay dhaqaaq iyo hadba dhinac jalleecada dhaayahayga sahanka waxaa dheega ii suray waa dooqa dhaadka iyo dhaanka adiga kugu raray ama dholashadeeniya sidaan kuugu dholondholay buy adiguna dhibliibaa dhaxan uga badbaado dhaayaha wanaag iyo dharo wax ku haysaa dhul tigaadla joogtaa dhimarkuna ku wacan yahay dhaadashada ku ladantaha waxaan dhoolla quracay kaa sucaalay dhinaca su-aale waxaa jiray de aniga la weydiiyey berigii aan dhaga furtagay moogta de aniga tii aan xelayi noqotaa moogta xaawadaydiya de ilaa nin walba mid xaawadiisiiye marka wuxuu leeyahay waxaan dhoolla quracay kaa sucaalay dhinacaas habeenka oo bardheelmaday riyo dhaban ma toosta ma qarowdaa dhanka aan ku noolahay ma usoo dhaqaaqdaa inagoo dhul beera leh ku dhexnagi ma aragtaa dhunkashada dareen kale dhegta ma iga siisaa adoo soo dhaqaaqo dhulkan yimid ma tabaysaa dhaantada iyo ciyaaraha farxad ma ila dheeshaa sidaan kuugu dhoondholay miyaa sidaan kuugu dhiganahay miyaan kuugu dheerahay dheelalowga qarowga mirta dhexe ma toostaa adoo oon dhan kala qaba dhafoorada ma qabataa dhaxantiiyo kulaylaha dhafar ma isla daristeen buy cilmigii muddada dheer dhaxalkiisa gaartay soo dhaqaaq ma joogtaa arooskeeni dhaantiya dhalin ma u sameeyaa dhan kastaba fanaanada heese dhigan ma siiyaa intaan sanadku dheeliman dhulkan maad kusoo noqon buy dhamidood su-aalaha dhinacaaga soo jira ka jawaab dhankaagaoo inaad iga dhaqaaqdoo dhinac kale u badan tahay oo inaan dhigaygaa dhowaanaad is helaysaan anna aad dakaarkiiyo igu dhooftay soolkoo inta nabarka aan dhayo dhigga aan la aqalgalo xasuustiiyo dhambaalkana weligaa ku soo dhaho waa dhaqan adduunyee labadaa mid ii dhib jawaabtuna dhammaysa iyo habeena iga dhexanbuy dee haa baash waxaa in la kala baxaa fiican adiga naftirkaagu haddaad noqotay darbigii layliya qays moogtahay nabarada jacaylkuna way kugu sii badanayaan de iminkaba xagga saroo dhan ba madow moogta xag jacayl baan qabaa dee kelmadaan u mabalihi salaan baan kusoo koobaya waxaan aad u salaamayaa dhalinyarada aanu afyo dhaqan wadaagta nahay fandis baan aan ka tirsanahay aad baan u salaamayaa dadaalkii kule hawsha ay hayaan oo fanka ana aad baan ugaga mahad celinayaa waxaan si qaas u salaamayaa macalimiinta maxamed abdullaahi diriye bulshaawi iyo cabdi ayub axmed cabdi raaxeeye waan oran karo waa macalimiinta fandis baan ayagana uga mahad celinayaa hawsha iyo dareenka aan wada qaadanay iyo shaqada ay noo hayaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhalinyaro badan baa intii aan maray oo dhan igu soo dhaweysay dhalinyarada gacay igu soo dhaweysay u horeeyaan suxufiyiinta gobolka mudug oo gabdhaha ah oo aanan magacyada halka kusoo koobi karinin ayagoo dhan oo isku duuban aad baan ugu faraxsanayn xafiiskooda ay geeyaan oo aan buuqday ay ahaayeen gabdho midaysan aad baan u salaamayaa waxaan kaloo aad u salaamayaa dhalinyarada igu soo dhaweysay garacad ayagana sidoo kale oo salaamayaa kuwii hobyo i geeyey fudayna hobyo tago ayagana oo salaamayaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhalinyarada iyo maamulka degmada Galdogo ayaguna aad ii soo dhaweeyay oo ilaa iskuuladii inay isoo dhaweeyeen ugu horeeya gudoomiyuhu oo ku xiga xildhibaan Sakariya Jaaburi Suldaan Farxaan fadhiyo asagana salaamaya waxaan kaloo aad u salaamayaa dhalinyarada magaalada Hargeysa ayaguna dareenka kula qaatay igu soo dhaweeyay waxaan salaantayda ugu soo gabagabeynayaa xajmiga ugu weyn haddana siinayaa dhalinyarada Ileysbaan afnaanin reejijigo aad ayaguna waqti ay la qaatay intaan joogay oo aan dhinacayga dhulkaan u ogolay